doono intii naga dhamaatay baan naga bahadnaqayaa maadaama ay tahay bishii imtixaanaadka shahriga ahaa nagastimoosna la gali doono imtixaankii mid teeranka aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan malaynayaa barnaamijkeena inaan iskaga guda galno oon caawa iska hor fadhino isla markaa maadaama ay waqtigu aad iyo aad cidhiidhi nagu yahay waxaan jeclaa inaan barnaamijkeena iskaga guda galno isla markaana sida caadadayno aan ku bilaabano aayadaha qur'aanka kariimka oo inoo akhriyi doono walaalkeen cabdilaahi cali axmed fatafadal mashkuura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا آية النهار فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ولكن الله ميزانك حسناتك ودرو اننا نكون حقوقنا الى نغيرو inta ka bacdi waxaan jecelahay inaan kelmad siiyo gudoomiyaha ururka naadiga ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar gudoomiye Abubakar Aadan Sheekh isla markaana aan siiyo kelmadii yahay welcome-ta ama soo dhaweynta tafadal mashkuura السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay caawa inuu nala joogo caalimkeeni aabaheeni ummadda Soomaaliyeed waxaan u malaynayaa qofkii aan aragna magaciisa in badan buu maqlay marka anagu hadaynu nahay ardayda Masar inuu caalimkeeni nala joogo sharaf bay noo tahay dhammaanteena caawa waxaan soo dhaweynaynaa sheekheeni Sheekh Abdullaahi Sheekh Ali Jawhar runtii aad baan ugu faraxsanahay idinkana aad baan idinkugu mahadcelinaynaa imaashii ay imaateen waxaan dareensanahay imaashaha markii la imaanaya naadiga aad bay u dhib badan tahay maantana khamiis bay ahayd
maalinta khamiistana maalmaha kale way ka badan tahay yani way ka zaxmo badan tahay sidaa daraaddeed aad baa u mahadsantihiin imaashaha ay imaateen si gooniya waxaan ugu mahadcelinayaa gabdhaha walaalahayga ah oo naadiga saa u qurxiyey naadiga caaw waxaad moodaaba annaga imaan jirnay dee madarkiisa waxaan malaynayaa aad ugu wanaagsan yahay waxaan leeyahay yani waajibkiina gudateen laakiin annaga sharaf baad noo yeesheen ilaahay idin sharfo gabdhahayna aad bay u mahadsan yihiin runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waayo haddii aan iyaga ahaan lahayn naadiga waxaan u malaynayaa naadiga waa meel taariikhi ah waa meel soomaalida dhan u dhexayso oo la wada jecel yahay laakiin waa uu duqoobay marka duqnimadana lama jahel marka sidaa daraaddeed waxaan u malaynayaa hadalka annaga aan caaw sugayno waa caalimkeeni akhyaar kalena way joogtaa waana u mahadcelinayo oo walaalkayga cabdullaahi oo aad garanaysaan ama cabdullaahi dahabshiir oo aad garanaysaan odayaashii magaalada ka mid ah oo dhinacayga midigta fadhiyo waxaa kaloo fadhiyo walaalkay cabdinaasir oo runtii ah qof zaciim weyn ah laakiin dadka garanayo yaryihiin baa u malaynaya cabdinaasir mar dhow buu qurbaha ka yimid laakiin wuxuu soo wada ka daran waxaa badan buu soo wada cabdinaasir bal haddaba cabdinaasirna wuu joogaa idinkana waan idin soo dhaweynaya mar labaad mar saddexaad idinku dheereen waayo akhyaartaan iyo idinka bal haddaba si aan u dhegaysano ayaga iyo sheekhaba ayagaan ugu baxaya aad baa umahadsantihiin asalaamu calaykum gudoomiyaheenu sida wanaagsan ee xilkasnimada leh oo inagu soo koobay kelmadii soo dhaweynta ahayd aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa iminkana waxaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo aqoon-yahanadeenna aqoon-yahan ka mid a isla markaana dalkan masar aad iyo aad caan uga ah ummadduna aad ay u taqaanto tixgelin weyn iyo qiimo weynna ummadda ku dhexle dhinaca miisaanka haddii noqoto iyo haddii noqoto aqoonta iyo haddii noqoto odaynimaba isla markaana ah haddaan nahay reer qaahira dadka ugu waaweyn ee ugu tuka waaweyn mid ka mid a isla markaana aan ka dhigano markaste gaashaan kaasi talo waayo waxa weeji cabdillaahi nuur xasan oo ku magac dheer cabdillaahi dahabshiir isla markaana aan ku soo dhaweyno si uu ugu soo dhaweeyo sheekhulbeledkeena sheekh cabdillaahi sheekh cali jawhar صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم marka hore dhammaantiin waa salaamantihiin waxaan runtii aada ugu mahadnaqayaa naadiga gudoomiyaha ardayda soomaaliyeed iyo naadiga kulankan ay noo soo qabanqaabiyeen munaasabadan qaaliga ah runtii waxa weeyaan fursad bay noo tahay haddaan nahay reer qaahira shacniyada iyo ardayba in uu caawa inala joogo sheekh cabdillaahi sheekh cali jawhar oo ka mid ah culimada waaweyn ee geeska africa isaga iyo aabihiiba waxay tilmaamaysaa markaa runtii inay fursadii noo ahayd anigu runtii waa markii ugu horeysay aragga laakiin magaciisa muddo dheer ayaan maxay ahatay maqlay taariikhda reer cali jawharna runtii gobli haddaad geliso sheekh gobli haddaad weydiiso wax badan baa inaad ka ogaanaysaa marka halkaa laga maxay aada looga bogto laakiin caawa runtii waxay noo dayf qaaliya ayaa inoo martiya inoo ah sidii horeba dad badan oo qaaliya halkan inoogu yimaadeen waxa weeyaan sheekh cabdillaahi sheekh cali jawhar oo mar sheekha marna oday maxay ahatay guurtiya ah marna siyaasi ah intaasba taariikhdiisa markaynu eegno waynu ka helanaa sheekh cabdillaahi sheekh cali jawhar waxaynu ognahay inuu imika yahay imaamka iyo khadiibka jaamica maxay ahatay boorama casharo badanna maxay ahatay halkaa uu ka dhigo taariikhdiisa runtii waxaa laga yaabaa sheekhu inuu ahaa maayarkii boorama 1987 ilaa 85 muddadaas boorama maayar buu ka ahaa duqii maxay ahatay booram uu ahaa halkan aynu joogno sheekhu waa uu inagu soo mar hore soo booqday inagoo inteennana aanu maxay ahatay aanaynu joogin ayuu halkan intuu asar yimi 86 ayuu maxay ahatay dowro culimada loo qabtay oo maxay ahatay ayuu ka qayb galay naadiga laftiisana runtii wuu soo booqday waxa uu sheekhu ka qayb qaatay isagoo
waqtigii dowladnimadii maxay ahayd horana ka ku jiray markii dambana nabadayntii maxay Somaliland xoog uga qayb qaatay laga soo bilaabo 93kii ilaa 2005tii wuxuu ka mid ahaa golaha guurtida ee Somaliland ka mid ahaa markii dambana isaga si iskiya isaga maxay ahayd golaha mas'uuliyadda isaga dhiibay oo golaha maxay ahayd ka tanaasulay waana naadir way yar tahay nimanka walada guurtida joogta oo laga kicin jiray bal la iska sii dhaxlaaba marka taasuna waxay ku tusinaysaa waqaarnimada iyo sheekhnimada iyo inuu mar walba isagu aanu mansab raadinayne dadkan bal inuu nabadgelyadooda iyo horumarkooda uu raadinayay ilaa imikana waa ka cilmigiisii dadku ay wada shaqeeyaan kolkaa kulli taariikhda waan ka wada gudan doonaa oo hal la wada maxay tahay isagaaba caaway noo jooga marka wax badan ku sii dheeraan maayo laakiin waxaan leeyahay sheekh waxay qaahira oo beledul cilmiya oo beledul maxay tahay azara oo waxaan ardayda iyo qaar ka sii horeeyay ay ka baxeen bad caawa joogtaa ardaydaadii iyo maxay tahay muriidiintaadii iyo waxaad hor joogtaa dad kale oo jaaliyadii Soomaaliyeed ka mid ah oo ku soo dhaweynaya kuna jecel in dhagahoodana ay u maxay tahay heelayihiin ciwaanka maxay tahay muhaadarada aad soo jeedinayso ee ah walaaltinimada iyo maxay tahay muwaadinimada labadaas isbarkana ayaan insha Allah caawa ka rajaynaynaa intaas aan ku soo gabagabeynay waxaan leeyahay welcome sheekh soo dhawow gacmo furan iyo qalbi furan iyo dhago ku diyaaraan kula diyaarnahay wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحن نبتكم كهورا لهي اللهم اغفر اللهم اجعلني خيرا مما يحسبون واغفر لي ولهم ما لا يعلمون دي أمان لغوسو جيديو وحلولين جري سيدة أحاديث أي كنت مدي نقفكو أو كيف كافر الله يستوى أمانتها أو إلى ضدك وحين أغين إله ويقداف لما أنت يانا نوغد مدافع مغفرنا وكوي ديسينا وتأولا أدبان دي سلامية وضك اللمانتي والسلامية سيقار وحن سلامية مديرك النادية الصومالية وعاه وهلك المرتي عن أوهي يساقيو جميع عيسى أدبان سلامية صلاة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيقار وحن تحجرين إياه وعنكي مين إياه قاهرة ومقالة وين أو بلارن أو ضدك قاركي ميالها قاد كود 6 ساعات 4 ساعات لصوك لصعون هايو ضدك تحقيلي قيمي باقة أنا وان مضمين ضد انت هاللاقين يسوك يمادان لكن أقول شرفين هذه الصوماليات أقول شرفين أدبنوغا مهد علمية هدي أنا أضافه موضوع عيقا أن أضافه انت أنا موضوع الجليل ومركي لبعضين قاهرة إماده سيدا وشيغي عبد الله تابشيل لحيس ديتنكي إيان محايري هل كان يمدي دولدي علماء لباطن علماء وعين وهيئة الوعد والإرشاد لو ننجري وزارة حضارة دروس المجلس السعودي وقبل والبا قف كيمدي سنن أو كلا ليسي يعني شيخ الأزهر الشيخ علي جاد الحق بالجوجة كلها خطاب كي الدولة qofkii Soomaalida laga siiyay ibaanka kamidaha aan jeediyay khudbadii Carabi aan ku jeediyay waliba shicir aan ka tiriyay ay kamid ahayd حفظت لدين الله أزل جامعا شتات علوم من تراث المعالي ويسعدني بدء النشاط لدورة تنير دعاة الناس كل مجال شيخ الأزهر إنك هو حمودي سوداني بحمودي فكان لكن إليه وهل نبأ فيما يعانيه شعبنا على وضعة الأحباش في غرب الصومال بيد شيوعي الماركسي حيل مريم وتخديد حزب الروسي داعي الضلال فقد هدمت فينا مساجد شيدت هل كان مريو يشاهد ماذا حلو مركي دمنا وحي يقول كنت أحسب أنك صومالي كنت أحسب أنك سوداني لكن عرفت فيما بعد أنك من الصوماليين يقولي وحشيخه يقولي waxaan jeclahay guuri inaad wixii aad kordhisanayso hadii aad u baahan tahay aad kordhisato oo joogto waan jeclahay baan
laakiin duruufo badan baa igu xidho oo aan saamixi karin runtii waxa xadiis baa wuxuu ahaa kuntum sigaara qowmin wasatacuuduuna kibaara qowmin aakhariin intii maalintii 86 aan ku nimidnay inaan baa iga yaraa boosaaso ka yimid cabdirasaaq qaluni baa iga yaraa inta kale waa ka wada yaraa maantana waa ka ana idinku weyn meesha joogay aabbo iyo adeer yaani idin wadahay caruurteeda kuwa qaarkood baa kuwa ugu yar yar ay gaarsiisay yihiin alxamdulillah rabbil caalamiin mawduucan waxaan u qaatay horta waxaan aad u jeclaystay oo ku farxay dhalinyarta qaahiro warbixinteeda iga siiyey sida ay u midaysan yihiin magac kasta Soomaalidu ha kala sheegato ama qaar Soomaaliland ha sheegtaan ka yimaadaan qaar Puntland ka yimaadaan qaar federaalka Itoobiya ka yimaadaan qaar Muqdisho ha ka yimaadaan sida naadiga aad ugu midaysan tihiin aad baan ugu farxay marka shaqo baa ay galay jacayl baa ay galay safiirka oo booqdayna isaga naftiisa runtii waa nin qaali ah oo ragaalkan azarka ka baxay oo aqoon dheeraad ah aan isku leenahay hawlo badan baan leeyahay uu leeyahay laakiin muxaadarada inaan ka maqnaado ma ahayn buu leeyahay laakiin hawlo badan baa yeesho ka cudur daartay isaga runtii ammaan badan baan u hayaa dadka Soomaalidu sidii yaani uga mahad sheeganayaan sidoo hawlaha ugu fudaydiyo ee ugu dhaweeyay isagoo kala eegin meelaha ay ka yimaadeen midna aan eegin awalan saxaabadu kolkay isku yimaadaan iyo kolkay kala tagayaan caadi lahaayeen waxay caado lahaayeen halka badiyaa inta badan kolka la yimaado faatixada inoo mariya la yiraahdo suuratu wal casr a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim wal casr innal insana lafi khusr illa alladhina aamanu wa 'amilus salihati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr wa ayadaha suuradaha quraanka ugu gaaban uguna ballaaran baa la yiraahdaa maxaa yeelay acmaasha afarta ay suuradu sheegayso al iimaan wal 'amalu salih وتواصي بالحق وتواصي بالصبر ووح وين أو قيمة له ضدك أو مؤمنين أو ضد مؤمنين أعمال صالحان اللي يمدوا استقامة الدين كودا كتوصل يقول دادي جود يعادلود أي تهي التواصي بالحق وحي حق ثابت إجرا باطل كهور جيرا إن يسوع شجع والصبر وبالتواصي بالصبر أتكيس شغل أتكيستنا إن عسفران ama ha ahaato macaasida laga adkaysto daacadka oo dhibaatooyin badan ha loo adkaysto dhibaatooyinka iyo masaa'ibka ha lagu safro aqsaamta sabirku u leeyahay oo suurad weyn oo jaliila waa taafitahan oo baan ka dhigtay mawduucan idin kala hadlayaa waa mawduuca cinwaankiisa aan idin soo sheegay ee ahaa walaalnimada iyo wadaninimadu waxa ay tahay wadaninimada rufisiinaya horta wadanka ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa quraanka wuxuu ku yiri يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ضضوا عصر التنزيل وقت الإلهي ذلك أوصدا أوليه صادق ضوءها إنك سلكين قرآن كان لنقول سوء جارسي مكا إلهي كان يحكو شيء آدم أبو ردي آدم وأبو ريبا كوكو أبو ريبا حكمة أوغو تلقى لي إن أحيد إنه إلهي أبوري وحن أبورني ده شعوب لب يدق بان ذيك أبورني لب يدق عن ذيك أبورني وحن ذيك يالني شعوب يقبائل بان ذيك يالني شعب يالك آيش يكون لول إيش يكون لول كو أمريكا كون لول كو أفريقيا كون لول شعوب سواوين وقبائل قبائل قونية اللي تعارفوا سعاد سجرتان بل حكمة ده ماشي أكون جرتين xumada ilaahay u dhagay halka sharqiga u shisheeyay hadaa tagto dadku si gaar ah iskugu eegeeyay ee shida soo hadaad aragto si gooni isugu eegeeyay yaman kolkaad soo gaadhiyo halka maanta aan joognay Masar kolkaad joogto labada qof kolkay ka soo horbaxaan baad kala garanaysaa kaasina waa Yamani kaasina waa Masar sida qaalibka ah shaamiyiinta waad garanaysaa kolkay ka soo horbaxaan inay reer shaamiyiin qodobada Afrikaanka kolkaad aragto halka gobolka aan ka imid ee awdal kolkaad ka bilowdo ee sida u waday inta Soomaalidu waa shucuubtaas ay la mid tahay laakiin kolkaad Soomaalida ka baxday Afrikada kala gasho kolkaad wad garanaysaa dadka inaad ka baxdo wad garanaysaa haddana Afrika kala ku wareeg waa xigmad Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo yeelay oo ku fadhiisay carrada iyo abuurka dadka iyo mawqica juqraafiga ee meesha uu ka dhigay in ay kala ahaadaan shucuubna ay kala ahaadaan qabaa'ilna ay ahaadaan waayo xayawaanku haddii laga soo qaado ari oo la yaraa waxba wax macno ay sameynaysaa ma jirto inuu farqi kala yeesho ari waa ari oo sidaan isaguna isma eegayo waxba ka dambeeyo male
ودناف هذو isgaranayo waxba ma cuneeyay uu isweyday ilaa si aan loo baqalan baba laakiin bin aadmiga xigmad baa ka dambayso ilaahay ugu tala galay inay kala duwanaadaan horta midabkooduna kala duwanaado mawqica juqraafiga ay joogaan goobo gaar oo kala noqdo iyadoo hadaan la manciyeen la sheegaynin isdhexgalka aan la sheegaynin laakiin xigmad weyn baa meesha maxay ku taala sida iyadoo yeelay waxaan u yeelay in si ay isku ogaataan oo xiriirkiinu u socdo oo isku ogaataan afgaar la wuu yeelay qoladaan afgaar u yeelay kana afgaar u yeelay waa luqadkii waxa la baray nabi ilaahi tacaala aadam wacallama aadam asmaa kullaha ayuu baray mufradaadkeedii loo horeysiiyey kan waxaasa leela kan waxaasa leela kan waxaasa leela kan waxaasa leela habka hooyadu sida ilmaha yar ay wax ugu sheegto ma tiraahdo hooyadu hooyo dabka waad ku guuban doontaa ma tiraahdo waa ilmo inta ma keenin karayo ma qaban karayo bay oran bay qabadsiin waxaasi waa waraabo oo wuu ku cuni ma qaban kara ilmo yar kama dhagisan kara hooyada laakiin khoof bay oranno khoofda buu wax walba ku garan mufradaadkaas la horeeyay xilmada ilaahay aadam ugu horeysiiyay waa sida dadku uu qaadanayo talaqiga aw qaadanayo waxa loogu tala galay inaad garataan oo macrifo in akramakum indallaahi atqaakum ilaahay agtiisa ka idinku maamuusnihi halkuu doono baa ku noolaade waxa weeyaan ka idinku wanaagsan taqwada ilaahay ku sifooba taqwada suuradii aan ku bilownay suuratul asr ahayd afarta dabaqa al-iimaan والعمل الصالح وتواصي بالحق مجتمع الحديثة وتواصي بالصبر أتكيسها كعين كاسا إلى أكتيس أبو ماموس وين وحين نقول أوضان تاسو إلى هاي بيجي دا ولجاي هذا وحكون دبيعي عدو والبدلو كيلا أي كنا صحيح محبة جارين أو هاي سجعيل جارين أو هاي نبي الله تعالى محمد صلوات الله وسلام عليه تاريخ الواضح صار غير مكان بلاتين وجيستين يسري كيالان أدب الله وقبا بعد كده قاعد إنه كبحه أو جب يسمي صاحب كي أبو بكر ها جب أي جلال جب كي مركي أي كبحين سنا أي وصل في الموضوع وصل جلاعي مكة والله يقولي إنك لا أحب بلاد الله إلي وما يشاء لكان وجعلاوي حضان قوم كانوا يجبحينا كام أم بحين لكن والله يقول اللي فيه وربحين عن بحين إن الذي فرض عليك القرآن نزل عليك القرآن لرادك إلى معاد إلهي كسر الدجي وهذا كسر الدجالي إلهي وكي أوضئين كسر عليه ما يشاء الجعراتي قلبك الصدع ضبوها يصوب مدينة كوكو سوق لي وحريري اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة وأشد إلهي نجعل يسيبون وذا كان الدقنين لبني سريعا ومكة وجعلين يسكسي على نجعل يسيبون بلال وصحابي اللي بعثنا سوق قاعدي مكان لأوجا وحي كسوق قاعدي لأوجا حمد كوكا قبضوا يقلدوا حنون صدو شوق يجعل بقى قبنا أي مكان قبنا هذا هو ماشي وحي اللي هو جيسين لأوجا لا الحين طالك على صار حر الرمضاء وقت الصيف كان شديد كان أحد كوكا لا كان نقول لا أحد أي هذا أو كوكا يوم ورجلي ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي وحولي إذخر وجليل وهل أرد يوما مياه من جنة وهل يبدو لي شامة وضفير الله معنى هذا يا ميان بري أبوري بوره مكاذي بري ضفيليو ضفيليو جليل ميان بري آيو عن كل أهيو بورها قاركودنا ميا مقضانا وماشي لباسني بسو قاعدي لوغا وجعل كوضنك وين سومالنا waa tirada shimir baa laga soo qaaday baa la yimeel cidla oo abaar ah oo geedii galoolka iyo waxa soo jiraan markaas uu soo qabsado beer iyo keenay meel bustaana oo biyihii iyo wax mas'uul keenay markaas ay tirada ahya wadankayga ay bay tiriyay shimirtii halkii ay baratay oo ka soo qaaday wax maalmaha kamid ah nabiga u yimiday nin ayaa u yimiday nabiga sallallahu alayhi wa sallam asiil magaciisa la yiraahdo markaasuu ninkii ayaa sidii ugu hadlay bilaal oo kale ayuu u hadlay oo leeyahay ala layta shi'ri hal abitana laylatan biwadi al-khuzama haythu rabbatani ahli بلاد بها نيضت علي تمائمي وقضعنا عني حين أدركت معفلي وكان يليه ميان وقاد بلاد كي عين كاسي جيدا عين كاسي كبحيين صدعها وعروتك وحلو حلي جري وحيابا قرناصة وحلو حلي جري
xildiid iyo waxyaabo caynkaas oo dumarkeenu ay lahaayeen oo kulkii dambe la fahmay oo waxyaabaha xasharaadka ka ilaaliya dadku wuxuu moodi jiray in qardaaso loo xidhay ay tahay la moodi jiray laakiin kolka carruurta halkaa loogu xidho kuma fadhiisan jirin duqsigu kuma fadhiisan jirin sidaa kolkuu ilaa kolkaa duqsigu uu ka boodi jiray kolkaasaa la odhan jiray ilmuhu kolkuu isagu garaadaysa isagaa iska tuuri doona la odhan jiray bilaadkii aan ku barbaaray ee makaraanadooda iigu xidhay ee hooyaday iigu xidhay waxyaabaha xasharaadka iga celiya ee aan kolkaan garaadaysay aan iska tuuray alla maanta maa dhex jooga ah markaasuu yidhi yaa asiil kayfa taragta maka bal iiga warran buuri sidaad kaga timiday markaasuu wuxuu yidhi waxaan kaga imiday buu yidhi iyada oo tacujub widiyaanuha ay butaacayaan togogeedii waqti barwaaqaabe togogeedii ay butaacayaan geedihiina ay wada ubaxeeyeen hadhkiina u soo wada rogmaday ayaan ka imid buuri xasbuka buuri laqad shawaqtanaa yaa asiil caaisha waan daymooday bay tiro faidan cayna nabiyi sala allahu calayhi wasalam tahra waaba labadiisi tadrifu wa tahra waaba labadii indhoodoo lilmo ay nebiga ka daadanaysa salawaatu ullahi wasalaamu calayh horta waddanku waxa weeye qiimihiisu waa kaa weey oo qiimaha caynkaasi ayuu waddanku aw leeyahay innagu haddaan ummad soomaaliyeed nahayna dee waddan baa innagana ilaahay na dhigay kaa inaan maxabadiisa horta hayno aan qalbiga ku hayno weeyi waxaa jirtaa in waddaniyaddu marka qaarkood nooc casabiyay noqotaa ama qowmiya ayay noqotaa oo qiimo ma yeelato xagga islaamka dhexdiisa qiimo ma yeelato marna way toosantahay way hagaagsantahay marka fii idaari diin ay tahay ee qofku muslim uu yahay uu diintiisa dhowranayo ee uu toosan yahay waddaniyadu kolkaa qiimo ay leedahay lamana odhan karo kolkaa waa casabiyad baa lagu sheeganayaa lama odhan karo waa qowmiyadu lama odhan karo laakiin markay noqoto waddaniya baxta ama qowmiya baxta sidii duwal carabiya mararka baryaha qaarkood oo dhex hore inna ay ku dhawaaqi jirto qowmiya alcarabiya una odhan jirtay inna ay odhan jirtay un maxay hayday waddaniya alcarabiya un la odhan jiray waa tii faashil bay noqotay marka tacaynkaasi waxay noqotaa faashil bay noqotaa innaga nafteedu way nagu dhacday haddii heesa la heesaya ay tahay haddii gabaya la gabaya hadday waddankoo lagu heesayuno waddankaygo maxaygaygo waddankaygo kaa uun laleeyahay laakiin aan ku dabaqanayn fii idaari diin war dad islaam aynu nahay dad muslimiinaynu diin baa laynoo soo diray diinkii ugu qiimo badnaa baa laynoo soo diray war waddankeenna inagoo ilaalinayno oo waddankeenna jecel war diinteenna aan toosino war diinteenna aan hagaajino lagama fikerayn xaggaasaa loo kaco markii ugu horreysay waxaa la qaatay nidaam ra'samaaliya ayaa la qaatay walow dowladdaasi la yidhaahdo wakhtigaa hore waa tii ugu toosnayd ee la yidhaahdo waa lagu fashilmay markii dambe haddana bari baa loo jeesto barina aan u jeesanaliyo qofna kolkay dhibaato ku dhacdo de kolbadhan buu u cararaa kolbadhan buu u boodaa kol galbeed baa loo booday kolle waxaa loo booday bari baa loo boodo naartii shuuciyaddii baa lasoo qaatay tafriiqa iyo kala kaxaynta iyo dhibaatada iyo waxay keentay la ogaa aasartay ka tagtayna la ogaa raadkay soo martayna la ogaa waxaasoo dhan maxay ahayd waddaniyadaha wakhtigaa jiray waxay ka madhnaayeen xagga diinta ayay ka madhnaayeen oy salbi ka ahaayeen sidaa darteed ayaan waddankii aan u ilaashanin mana ilaashanin oo ma dhowrmin dadkiisiina dhibaatada ku dhacday iyo waxyaabaha ku dhacay haddii ay toosan yihiin oo xagga diinta ay dadku ku toosan yahay waagaa oo nidaam islaami oo toosan la qaadan lahaa dhibaatadaasi ma ay dhacday ma aha wax khayaala waa wax xaqaa'iqa oo dhab ah casrigii kolkaan ka warran islaamka uu soo maray ilaahay wuxuu u ballan qaaday dadka mu'miniintu haddii ay toosan yihiin oo ay hagaagsan yihiin oo ay la yimaadaan aliimaan walcamal saalix saddex shay buu ilaahay u ballan qaaday وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا صدح هذا الشيء بأنه بالله قادم إن يجوا يسوط ليان وأرلضا عن بجي يكونون فيما بينهم خلفاء النبي إبراهيم النبي الله تعالى آدم حين أوصل لجي نوعي خليفة إنه نقضه إلى أحكامتي سأرلضا كفليه inaad inaga waxaan idinkaan la idinka dhigay khalaa'if kuwa arlada dhexdeeda axkaamta ilaahay ku fuliyo oo kala hadha inay horta noqdaan kuwa khulafaa fiimaa bayn oo iyagu isku xukumo dhulka inuu diinkooda makaniyo inuu ku bedelo cabsidooda ka bacdi amni oo ku bedelo intiiba way dhacday casrigii nabiga dhexdiisa ay dhacday awaakhirtiisii dambe casrigii abubakar iyo cumar bay dhacday casrigii cali ibn abi talib bay dhacday iyo cusmaan bay dhacday يعني مدمد هاي ما ده أمراضي كذا بيصير نفسه لو اختيار حجبتي إسلام كزاهر وهاي إلى مشارق الأرض ومغاربها دون والله
wada akhristaan xuduudaha wadaysaan dhulka maxay leeyahay u gaari marka shay khayaala ma ahayn wax islaamku uu xaqiijiyay yahay waxay ka iman jiray maalku uu ka iman jiray dhow walba uu ka iman jiray oo sidaas u shubi jiray oo waa baahi waa laga baahi baxay wixii dhibaato ahaa iyo wixii la soo maray waa laga baahi baxay maalmaha ka mid ah يا سيدنا عمر بن الخطاب أيها وحو يمدي يعني وحيابه وين بفارس كي يمدي وغنائم وين وإسلام كي ورجالي مدينة جوي أو لون قف ورجالي وكي قصيدة استكمل هاي هؤلاء كي يكونوا حتى مركي قروش السماء وقيبي يا مدبا صاحر له مركز سيد علي بصدق أو هذا سيد علي بيقول سيد يكون كي ضمبئ النبي أي لا شيء فاطمة الرسول أي لا شيء يقول سيد عمر بن الخطاب gabadha faadma rasuulkeedii ku xusuusan inuu tan gooniyada dheeraad ugu darbaalay la abu islaam muhaajirada ahayd baa uga xaqlay buu taasaan yaan ugu darayaa buu islaam muhaajira waa qanaa'imka caynka ahaa ayaa halka la soo buuxiyay nin saxaabada kamid baa yiri hada min fadlillah wa fadliga ilaah rasuulullah intuu umar u eegay ayaa wuxuu yiri يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هذا فضل الله لك يوحوا أركي مع الكريم ويقولوا فضل إلهي إنه كان الإسلام كأوكي عمر ما أولاني فضل إلهي ما هم أولاني لكن وحطوا صي فضل حقيقة وحائه وقرآنك إذنك شفاء يعني إذن رحمة إلين هداية إلين كاكو فرحة من فضل إلهي كاسة هذا النبي الله تعالى سليمان أمك يسيل البلاري وكيل هذا من فضل ربي ليبلغني أشكر أم أطفر وكيلها وحال إيسا خيري وح إلهي عمد إيسا لكن حقاري عمر بن الخطاب مدرسة النبي الله تعالى محمد بن ذلك صباح صلوات الله وسلام عليه أو رات كيسي أن هيام نبي الله تعالى محمد بن سليمان وككامل سيئه نبي سليمان وككامل سيئه أفضل خلق الله وي كوكاسو أركي عمر فضل الله هل كي سليمان مالكي يملكي جلسي ومن فضل الله هو الكاي فضل الله وحا أبولي كتابك القرآن كأه يا إلهي صدر النبي الله تعالى محمد عليه صدر واحد تفهم ما كمل أبا هريرة المدينة يسوي تشوبا يا أمة محمد أنتم ها هنا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد إذا لم يسلم فردان وتقامئية بلا عادي وحدان بود لحالك إلا بيجينا صوت لغو قيبون يبقى المساعد لغو قيبون والله صويا جبل سوي وقف صلاة كنية وقف وحقر سنية وكل اعتكافية وكل ما تقول لي انتم زوجي لي يصير عبادي سنة يرجيفا مركز واسع وهل ترك محمد صلى الله عليه وسلم لنا غير هذا ما دحلبي نوغتي روحي نوغتي سو انت ما وحي نوغتي marka eeg saxaabadu sida u arkayeen eeg waxa qanaa'imka waxaasa ma tuulanayno halkan ma gashan sida marka adduunka laga dhigay ee wali wadanka aan oo kale midna Soomaaliya ama koonfur ahaado ama Puntland ahaado ama Soomaaliya ahaado qofka ku wasiir noqda lagu taxliyeeday ma sha Allah wax jaga amal hayd wal qabsan jaga dhisatay كل كابو بلابيا سوق جاو قبص لاب بلابيا دار وين بكل كابا بلابيا قاركودنا بانا كابا كشبتان عشان كل كابو بلابيا بان إنه كشبته إنه قاركود وبلابيا نوع ما يناهي سحابة ما يناهي وحي هالكاسة ومد المال كذا هالكابو بالسعودي جيو سلام بمد اللون جلو باي بكل كاب ما يجي راليك هذا قضية شو يسكت شيء كبرين كلية سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه أيوه نين بل ديرده iyo waxaan uga jeedaa sida ayna adduunyadu u saameeyeen ninba inuu wax weydiisto doonay sayid waxa saan u baahanahay ma oran intuu qaatay iyo halka ku qoray oo uu leeyahay lam yabqa indi ma yubaacu bidirhamin tumbika halatu man dhayi an makhbari illa baqaya ma wajhi suntuhu an yubaaca wa qad abahtuka fashtari wuxuu wax agtayda yaalaay ma jira buu wax dirham la siistaa on haystaay ma jira buu war aan ku warramo waxa kaaga filan buu aragayga sidaan oo kayba kaaga filan buu ilaa wajiga waxooga yar iigu hareeno inta wajiga ha iibsanin iyaan islaahay intii wajiga yaraay ee haray sayid cali iga iibsa buu sayidku sida warqada uu qori dhul xariiqaya dhulka uu xariiqayay ayuu arkay wixii uu yiri halka ka arkay isagoo la dul tagin buu halka ka arkay
ishaaradii buu la socday qofku hadduu aad shaygii u yaqaano oo halkaas sabuuradu sidaa yidhaahdo dee macallinku wuu garan karaa sidaa kolkuu yidhaa hal inuu yidhi qultu inuu yidhi macallinka xaribkii u garan karaa iyo kolkiiba isha ku dhuftay wuxuu waafaytanaa faataaka caajilu birina haadaa walow amhaltanaa lam naqtari fakhud ilqaliila wakun kaannaka lam tabic ma alxaya wakaannanaa lam najtari waxaa dul jooga kolkaas sayidka u timiday ximaalatu 5 jinaal 5 awr maal ay sideen ayaa u yimiday wuxuu waad noo timid buu wanaag wixii bir aan ku taraynaa kaaba baraagine uu yimiday buu intanba wada qaaday buu dhamaanteedba wada qaaday buu waxa dadka adduunyada aan qiimo la ahayn ay ahaayeen sidaas xaalkoodu aw aha waxaan soo noqonayaa waxa kor waayeen waa wada ilaa la yiri ama halkan imika uma tala galsanay wala iska show iyo jacayl bay qaadeen ama laga yaabaa inay su'aaliga weydiin doontaan ama aniguba kor waayeen waa wada ilaa la yiri inaad iga sugaysaan in wadankii idinka warramo horta wadankeenii waad la socotaan sidii dawladda ay u burburtayba dhibaatooyin waaweyn oo aad u ballaaran baa ka dhacay dhibaatooyin waaweyn yaa wadanka ka dhacay dagaallo iyo xuruub ayaa ka dhacay haddana ha dhacdee waan dhaanaa sida maanta dadyowga qaarkood ay yihiin uma ay dhicin umuladooxo oo reer la isku laayo oo wax aynkaasi ma dhicin waxa dhacday dawladdii iyo shacbigeedii oo wax isku ridridaaya kolkii ay joogsatayna dadku waxa cid waliba ay tiro warbal maxay noo dan warbal maxay war dagaalkii naga jooji warbal dagaalkii naga jooji farsamo xumo meelaha qaarkood ha dhacdo oo qaabkii madaxnimada ay lagu heshiin waayay farsamo xumo ha u dhacdee laakiin waxyaabaha maanta walaaliheen ka taagan badankooda ka taagan kama dhicin dhulkeena haddana dacaanadaatayba dabadood la qabay iyaa la yidhi waxyaaba nidaamyo ah meelo badan buu ka jira oo nabadiina ay ka xasishay sida buntland oo kale nabad fiican baa lagu joogaa somaliland oo nabad fiican baa lagu joogaa koonfurna waad la socotaanoo xaalkeeda iminka aad buu usoo wanaagsanaanaya annagoo qolyaha waxaan nahay xagga waqooyiga ahee xaggaasaan u joogsanay yidhi oo kolka la yidhaahdo maxay waan goosanay war ma aanaan goosanine dhan baan u joogsanay iyaanu maxay dhinac baan u joogsanay wixii ka dhacayay koonfurta ka dhacayay balaayadaasi si ayna noo soo gaarin ayaanu maxay maamul gaara samaysano dhan baan ugu joogsanay laakiin ummadda Soomaaliyeed waxaan idin sheegayaa oo idinku bishaareynayaa meel kasta oo ay joogto waa ummad wada walaal ah abti seedi adeer dadka caynkaasi dad dhabarku isku jeedin karo oo aan waxba isku ahayno niba aan kaasi waxba igama khus ma noqon karo halka maanta uu iga xiga aniga calam aan Soomaaliland baan ka imid haddana maanta halka ku arkay waa ku farxaya waayo waxa caalamka kale ee joogo dhan uu iga wada xiga nibalbu iga wada xiga waxa weeye kolka ummadda Soomaaliyeed idinkuna waxa tihiin dad sahan baati dadkii wax barasho u yimiday ayaa tihiin wadankaasi idinku sugaya ama Puntland ka yimaada ama Somaliland ka yimaada ama koonfur ka yimaada idinku ma kala liidina maanta halka qaayraad joogtaan wadankeeda wax u barataan umba annaguna waxaanu idin arkaynaa dhalinyartii Soomaaliyeed ee dibadaha u soo kacday oo wax soo baranaysa halkay doonaan baa hadhow shaqaha ka qabtaan ama Soomaaliland shaqaha ka qabto ama Puntland ka qabto ama koonfur ka qabto ama federaalka Itoobiya ha ka qabto waxa weeyaan waxaan isku naalaa waxaan kala go'aynin walaalnimada iyo wada dhalashada ayaa qofka Soomaaliga ku kaad meel kasta oo joogto oo kugu soo baxdo qariiba si gaar ah ku kaaba u eegaysaa si gaar ah ayaad u eegaysaa taa maxaa keenaya waa Soomaalinimada cariiqa aynu ku nahay halka inaga wada talaalan in ummad Soomaaliyeed aynu nahay oo Ilaahay geeska awna dhigay waxa soo dhacay bariyahan oo jirta islaamba waxay tiraa la yiri barnaamijkii nabad ma aha الله waxay tiri reerkii nabad baan kaga imide laakiin mooye taagnaayay hadaan u dhibaato geysan nabad baan reerkii kaga imid waxa jiraysa dumarku markay mooyaha wax ka lagu tumo waa la tiirin jiray saa loo jifin jiray waayo carruurta yar yar baa ina waa shayga weyn ee taagan carruurta yar yar kii shan jirka ahaa baa jeeri ku kala gurguuranayay ayuu madaxa kaga dhici basba markaasay tiri balaayo kama aan imanina nabad baan reerkii kaga imide mooye laakiin taagnaa oo tiirinin ayaa xusuustay halkii intii la kicbay qayrati midoo la yiri kii yaraaba mooyihii jeerayo kii kale gurguuranayay madaxa kaga dhacayo ilmi yaraa laasbay
ilaahay horta inagama dhiga aan dhulkii nabad baan kaga imid nabadna waan ku ogaa laakiin wax qabiil la ilaabaa sara jooga waxaasi wuxuu geysan doono kolkaas waliba lagu saleeyo la doorashadii iyadoo wixii la isku ogaa ay ahayd warbahasha qabiilka aan ka baxno oo yaynaan ag marin oo dastuur aan samaysano qaranna aan yeelano inanka iska sharaxayaa zayl oo kale iska sharaxayaa iska sharaxo ceerigaabo iyo balan iyo laascaan ka tigaya iska sharaxo yaynaan waxba kala yeelan iyadoo wixii la isku ogaa oo baa bahal cimaamado duubka xirani ay soo qodan inka joogto oo kaliya kuma eedaynayo macal kuwii hore ee joogay wax lagu aasaasay iyo noqon waan ma miidiyaha inay ka aragtaan habeen walba oo suudaana la caleema saaraya وريه هبل هدان نحي يا مع الكونفرنس كميد وريه هبل هدان نحي سودان هبل بان علي مصارني يا يلي وحالا محا كينيا nimanka madaxda aba caadaystay inay yiraahdaan hebel musuldaan baaha suudaanka soo daa warka kale aad waxa naga joogto markaas markii oranaya ma hebel oo aqaano oo geedkan ka hadlin ayaa suudaan noqday waa rashii soo iibiya tukaan halka yaalana iga soo qaado marka soo hadinta loo keenay imaamkii foofiyadii sidaan aroorta badan oo xiran والله هذا رج بدن قيمة ليه كجرا صلاتين أو عمد عنيه يدمان طول موضة عنيه رج قيمة له أو شرف له هي لو كان كي بدي وخلي أها سومالي لان أنقرنا إياه لكن إيه بدن نقول جرا بس هو اللي لا مصدام ما وصدام والله كله يا بل أنت والله كل كلا شيء بس صدام الله درس له لا إيه ولا قصر على وجهه إلا قصر على مركا saddex shay baa dhulkeennii Soomaaliyeed isku dar ama Soomaaliya ha sheegto ama Puntland ha sheegto ama Koonfur Jumhuuriyadda imika soo kacaysa ay ha noqoto saddex shay baan halis ah saddexduba waxay tahay inuu qaaf bay ka kacaan mid waa qabiil aawan mid waa geed qaad la yiraah mid waa qoodkii wadanka oo la nacay oo qoodkii wadanka ka soo baxay oo la nacay oo laga baxay من هو قبيله وكا أداركتين فول حنبولي قصيدة كتير ربيع السجاشن وانين مريض دونا إن شاء الله تعالى أنت عربي جرنا كلها مادة قال لك تنوي فيها كل وضع عربي كانوا ده جوتها ولا فاهم هي وانين مريض دونا ربيع السجاشن قصيدة عن تريه ورين هو كذا على هيك قبيلة الدنيا فالحمد وضع كومريو من هو قبيلة ده من هو جيت كقاض مهرة هلكو إن رمر أيه وضع كهدان أكتين ما مرين كرتا waxa dhacdan 10 qof ee reer magaalka ah 5 baan cunin ama 4 baan cunin ama nus oo nus baan cunin way inta reer magaalada jirta baadiyaha miyaa waa la soo waayay 10 qof ba 9 baan cunto jaadko qof baa laga yaabaa qofkaas ila waxa leeyahay waxa nusanaya baan uu ku kaabalay ama wiilka beelay oo ilba ma hayo wiilka beelay nin baa ka foolxumadiisii halkii la oran jiray dumarka ay oran jireen hooyo ariga eego dacwada ka ilaali waxa la yiraahdo ariga eego aabba ka ilaali maxaa ka ilaali loo leeyahay arigu oranaya waan aroorinaya maanta ana aroorinaya nimanka jaadlayaashuna way amaahiyaan dadka jaadka way amaahiyaan qaada loo oranaya kolkaas loo oranaya warda waxa lagu yeeshay inta soo jaada lagu leeyahay lacag ma hayo ergibaan keenaya buu oranaya damaanka hore galayo barbalama berri adu diraysa arigii wuxuu oranaya ana xoolii dumiyo maanta waraabinayo soo waraabinayo neef buu ka reebaya kolkaas caado noqdo dumarkii la yiraahdo ku ooyina tayaro yiraahdaan ooy haduu neef qaado nin baa lii maalintay ku ugu darnayd baan aniga maalintay ugu darnayd waxa weeyii buu maalintan islaantii yiri buu ariga ana aroorinayo waan dharkan soo marmeena iska fadhi waa daashay ma yaabay tir aniga aroorinayo way garanaysaa wixii aan u jeedo inna mari daana kula aroorinay baan yiri buu si alla si aan yeelan garan waayay ariga ku kala waraabinayo foostal kala gooyaa bar ah kaasa lagu waraabiyaa meesha laga tagaa foostadii barka ahayd orgiyada intaan soo qabtay yaan foostadii gobolka ay koobi argii la waraabiyay ayaan sidaa ugu garbiyay waa ku dul fadhiistay salaantii aan dhigay hadda argii dareen halka ay taagantahay waxaan saddex shay baa halis wadanku yahay mid waa qabiilka midna waa qaadka ka kalena waxa weeye waa quudkii wadanka ka soo baxayay oo dadkeenii ka tagay inaan goostay goor ay gooyeen garanaysid ku heshiiyeen garanaysid inaan dhulka zarci la beeranin oo waxba la beeranin xogaa yar oo khudrad ama ah
galbeedka anigu aan ka imiday ee boorame iyo gabiile iyo jiilaha ee beeraha zaraacada waqooyiga waxa ugu badan gabiile iyo boorame ayaa ugu badan waxa la beeri jiray haruur galeyda oo arbixida ah qabadin sareen heel shumburo misir atar sagaraxuur maxaan ilaa 13 shay baa la beeri jiray oo la cuni jiray dadku ay cuni jireen bariis lama oqooni waayii hore anagu dhalinyarada ahayna kacaanka ahayn lama oqooni maalinta bariis uray waxa loo jiray alla reebel baa ducaysanaya bariis cad baa la karinaya awal hadaan urinaba ducay ahaan jirtay oo iyo ahaan jirtay maantana waxay maraysaa aqal walba in lagu cuniyo bariis iyo baasto lagu cuniyo oo haruurkii wax cunayaaba aanu jirin galeydii wax cunaya habeenkii baa qof baa habeen iyo qaat waxa way qiimo beeleen dadkii loo iska badaayo caleen baba loo gooyaa imka beerta ku qayb baxdo waa la goonayaa xoolaha barbara la dhoofinayo si loogu qaado waa dhito qolada madaxda la hadlaayay baan ku lahaa haddii ilaahay la samaxalla alla kama dhigee hadduu dagaal caalami dhaco ama shidi caalami u dhaco oo qaaradaha Asia bariiskii nooga imanayo doonyaha iyo maraakiibta la wada xilo dadka Kenya ee 3 bilood gudahood ku macaluulaya ay waa Soomaali ummaddu ku kay tiraado dhulkayga ilaahay ugu abuuray waxba kala soo bixi maayo anu oo waxba beeri maayo waan dul fadhiin oo xooluhu ba ay daaqi zarci beeran maayo aan cuno waxaan ka sugayaa Hindiya iyo Pakistan ayaa ka sugayaa kolkuu yiraahdo haddii dagaal u dhaco ma jirto waa la baaba'aya bariyihii hore kolkay abaaro nagu dhacaan dhulka Oromada ayaa la geli jiray islaanta shabeelku ama waraabuhu laxda uu ka qaataa waxay ku ooyi jirtay mid maqasheen muciyaalkiin waxay ku ooyi jirtay qotaha ibsadayay bay oran jirtay ku ooyi jirtay macnaa kala dul arigii habeenba neef qaato waraabuhu kolka qotaan u jeedaa dhulka Oromada haybsaday halkaan Oromo ka galayo qotaha ibsadayay bay ku ooyi jirtay marka waxa weeyi tiina maanta ma jirto oo iyaguna ama way la mid noqdeen ama ummad malaayada bay noqdeen zarci nooga imanaya aan jirin marka waxa weeyi saddexdaa shay horta dalkeena halis oo aha qabiil sare jooga waliba dowlad wax sii kicinayaan ay tahay doorashooyinka ay tahay dadku qabiil isku ma sheeganayo oo daaqsimo laguma dagaalamo ceelal laguma dagaalamo gobolada dhexe waxa laga sheegaa galguduud iyo waxa laga sheegaa meelahaas laakiin inta anigu horta ogaay waqooyiga ilaa Puntland laguma dadku kuma dagaalamaan daaqsin iyo ceel iyo kuma dagaalamaan laakiin halis waxa loo yahay walina ma dhicin laakiin halis baan bahasha adu wadno baan farto ku ayaan leeyahay qabiilka haddii laga deyn waayo doorashada qabiilka ku dhisan haddii laga joogsan waayo oo laga waantooni waayo de foolxumo baa looga dhaadhici doona marka bal idinku dhalinyaradii hadda tiin dibadda u soo kacday cilmina baranaysay hadda tiin wal waxaad maskaxda ku haysaan sida saddexdaa shay looga gudbi lahaa qabiil wax lagu qaybsado oo madaxnimo lagu doonto qaadka oo laga haro iyo maxaan ku yiraahdaa quudka oo wadanka lagala soo baxo oo dhulka dhaamam laga xiro oo ku turtirsadaan inama badan oo jira jirta tanmiyada ziraaciya iyo waxyaabaha barta ayaa ugu jira in dadka lagu turtirsiyo waxaan xusuus idinka tagayaa oo kale waxaan halkan 29 baan aad uga calacalay Soomaalidu xaalkeedu sida uu ahaa waqooyiga naftiisuna kolka hagaag uma deganeyn isaga naftiisa oo dhibaatooyin baa ka jiray burci iyo barbari iyo waxyaabaha ka jiray markii dambe ayaa nabadayntii odayaashay ka qayb galay aan kamid ahaa ee nabadeeyay baanu ahayn laakiin waxaan ka taasufayay kolka 1929 ummadda Soomaaliyeed xaalka ay marayso ereyada waxa kamid ahaa abki ala Soomaali wal wadani صبت عليه مصائب تتنوع دمرت مباني للحكومة أدخنت فالأرض قفر ليس فيها مصنع أين المكاتب في العواصم لا لها إل يراعي حقها أو يدفع فتكت محارمنا وقد فعلت بها أقصى العقوبة ليس عرض يمنع والنهب للأموال أصبح عادة سقف الديار واللوحها يترفع حمل السلاح شرارنا واللئامنا يقضي بها نفسا ومالا يجمع وتفرقوا باسم القبائل بينهم صار شعار لهم طلاي مفزع دارود يا ضراي ويا هوياي لها وشبيهها وشر فيها مودع جعلان تدفع نتنها بأنوفها فحم تهون على الإله وتصرع مثل يوضحه الحديث مطابقا زجلا لمفتخر بها لو يصنع
حديث أيام النبي صلى الله والسلام عليه لا يشهدن أقوام يفخرون بالرجال إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونون أهون على الله من الجعلان التي تدفع النتن بأنفها. هذه القبائل في الفساد أزمة لمضية الشيطان فيها مرتع ويقودها سيد القبيلة إنه قين يفش بكيره ما يقلع. قد كان لي في الأفق نجم ساطع ودوي صوتي في الأفارق يسمع. أسد له لبد بوسط عرينه واليوم ثعلب لا يهاب مضيع. ولقد تمزق شعبنا من بعد ما كان لنا في الناس مجد يلمع وتفرقوا هربا إلى الأوطان لا زاد عندهم ولا ما ينفع. نزلوا مطارات وليس لديهم رخص الدخول إذ العبور ممنع. هاتوا الجواز وأين أنتم تغسلون عكف المدار لهم عيون تدمع. ضرب لهم أو حبسهم أو نفيهم فهم حيارى والهواتف تقرع. يا أيها الصومال قوموا واجمعوا شملا لكم كي تسعدوا فلتسمعوا وذروا التعصب والتناحر بينكم صومال جنسكم ودين يجمع. هذا كتاب الله يألف بينكم فيه السعادة وهو النور يسطع. يحيا به الشعب الضعيف ويسعد وبه إلى سبل المكارم مهيع. مهما طلبنا عزة من غيره ضربت علينا ذلة تستبشع. عبر بعهد الماركسي ونظمه فمعاذ ربي أن نضل فنرجع. لا يلدغ المؤمن من جحر إذا كان الحجاء قرينه لا ينصع. يا ربي يا ذا الجود يا باري الورى يا من إليه شكايتي والمفزع. ارحم لشعب ذاق ذل معارك دارت رحاها فالنفوس تزعزع. والمقت فارفع يا إلهي والغضب من لا يخافك لا تمكن يبخع. ولك الجنود من السماء وأرضها والكل منقاد لحكمك يخضع. فمن علينا بالأمان وقادة تهدي إلى سبل الرشاد وتنفع. هذا عبيد الله ابن الجوهري يستوهب الصومال أذنا تصنع. ثم الصلاة على النبي محمد خير الخلائق أجمعين مشفع. حالة سان كتأسف يوم آد وعلى علي أمد الصوماليين آد وعلى علي وأن رعصنا وأن هل كان رعصنا يا هذه حاجة سياسة ممكن بيتعرف أو ياشر السياسة وحكوا اللي يلي كنت نبى لي كل الصحابة وأوي بكمدها كل عائشة قرابة أنا كمد بوها سيدنا نقول مينابو جنابه أو مينابو وأم عاشوا أمهات المؤمنين لكن يحجون الدين وحي حق الموقت والعبادة يسودون يعني يكونوا تبوا قاعدة على الخبير سقط من قفح بأولاء أيضا حويدي سيبة العائشة مركز التلماتات الصباح أم يلو جلكا قبيها وذا جالسي تمها جالسي سدايل مال يضو جلكا قاء وإنجيل هكاكتين والسلام عليكم ورحمة الله أي مقدمة marka hadii aw la igu tilmaamo oo waxba la yiri waxaan wax ka ogaa runtii waxa jirta wada hadal baa socda oo ka warqabtaan halkan intaan joogay baan lagu waxaan maqlay wada hadalkii uu burburay baan maqlay anu qoladayna waa u dirayaa qolada kalena waa u dirayaa waxaan leeyahay wada hadalka Soomaalidu marna inuu burburo maaha waxa burburinaya waxa weeye dadka da'yarta ah ee 30 jirka 40 jirka ah ee waqtigii dawladnimada la qaatay dhexdiisa dhashay kolkay isku yimaadaan ay kulmaan inay iyagu ku heshiin baa laga yaabaa soo jeeraan baa laga yaabaa da'dayda 20 jir baan ahaa maalintii calanka Soomaaliyeed la saaray dadka da'da ka xanaaqan ma aanay waan ku farxaayo ma sha Allah baan ilaadaa 75 yaan hay marka imika 5 baa laga joogaa 60kii laga joogaa 20 jir baan ahaa siyaasadaha kama aan qayb galaynin laakiin waxa la hadlay mutacallim oo luqad carabiya ku horeeya oo ثقافة weyn ku leh taariikhda islaamkana aad u akhriyay taariikhda xataa ka horeeyay akhriyay waxa la kulka taariikh aan isku amaanayo waxa ilaahay waxaan akhriyay min ladun hamalat hawa bishif katwa ay ku qoran tahay hawa kulka uurasatay shiif taariikhda ka soo warrama muruujida bu macaad al-jawar waan dhameeyay dhamaantiiba waan dhameeyay marka ummada dhan oo taariikh aha oo dawlad aha baan waqtiga aanu kaamil ku aha akhrisashadooda aan kaamil ahayn ku aha marka waxaan leeyahay raali aanu kama ihi in la yiraahdo way u burburay oo waa lagu kala tagay la yiraahdo hal wada haduu baan leeyahay waxaan leeyahay dhalinyarta yaryar laga daayo odayadayadii waaweynaa iyo mashaayikhda waaweyn
iyagu dib ha iskugu soo noqdaan oo ha la yidhaahdo iyagu ha soo fadhiistaan xataa ha loo yeedho labadii dowladood ha loo yeedho oo bal ingiriis oo la soo fadhiiso oo bal talyaani oo la soo fadhiiso waa ummaddan maxaad u kala qortay inaad ku heshiisisay inaad u kala qorteen ha la yidhaahdo ama waa la wada jiri oo dad walaalo oo meel keliya isku noqdo oo baa la wada noqon ama laba dowladood oo iskaashado sida carabtuba way badan tahay oo baa la noqon kol laba laakiin Soomaali inay kala jeesato la yiraahdo waan kala tagnay adna xagaaga u kacad xagaaga u kaco colaad ay ka beeranto la anagu ma nuugulin taas ma nuugulin wax colaad lagu xalliyo oo arrimaha colaad lagu tayo oo colaad ba la ma ogulin waxa weey wadanka kolba in baa u nool maanta odayaal arrinka gooyay waa u nool بريتو شباب دليرتي الناس وكله يا محي هذا قبضان دونتا أو قبضان دونتا ترى ذا إذا كان بريتو لو وريك دونا هو إذا كان دنبيا لو وريك دونا مركا مجا الصومالي لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين وحنكون فرحة مرنا وانحة كل وحلا شيء كأي لا هل كان متباك قلا وحاتي هل كان قلا ما مصمم ستنجارة هل كان لا ويردم كنيسة لكن كل هذا رجل مد واللي مجلس هو معي تقول لا واحد لا والله بيش رجل في عمل يالبال له خذ منه الصومال وشيء قال رجل في عمل له مرقات أنا وحنا إن شاء الله تعالى أنا حاجة أنا وكنت ترسينا لو نوفري هذا العلماء ودين كناي هذا القضيات كناي وحنا هاي ما قلنا إن إلا إلى هذا لما وضح الله هو اللي كانت تقول ساسا لو كنتين وضح هذا الكروس الصحانية لما أنا مدهم بالله سكوي إيماني أما قول الدول يسأل بيرد نقول دوتا معي هيدي والملكي أنا عنه ومتكلي أنا عنه أما واحد نقول والقرآن والبرد كذا هو جوكتو سيدا عرفت ولا بدو لما نقول بنقول دوتا كذا ما دوتا لكن Soomaali واحد قال تان قلبك عادي كذا طلع ناتو Soomaali نمو يا والله نمو وحنا نجيك عينيا إلى مستقبل في عنو سعيدة إلى سيو إلى الجحلان سيدا أتكون جدو بنت هنا وأكون فرحي كسوق قبله أي كسوق قلنا كنت أتبع نو يعني أبو فرحي أو كل الإيجي وحليجي وذي حولين جيرين ويل يعان لا سيضل لو كلا فصلا قالوا waxay tira gabdhaha aan qaadan العام من الجواري من كل شوهاء كشن بالي لا تدفع الضيم عن العيال وحاسيتي يترس ilaahay gabad baadiyay yara meelaha qolqolka uu joogto qolqolka dhaafin ilaahay gabad baadiyay oo walaalhu kolka la dilayna oo hin mooyaane wax kale ina kaygii baa la dilay oo tira mooyaane aan waxba tarin ilaah baa iga badbaadiyay gabadhii kale gabadha dhashay baa tiri wama علي أن تكون جارية تغسل رأسي وتكون الفارية وتسقط ساقطا من خمارية حتى إذا بلغت 8 أزرتها بنفية يمانية أنكحتها مروان أو معاوية أسحار صدق ومهور غالية وحيتين وحبا ملبيتين قبل هدان لا أنا وحبا ملبيتين كل مدحها هي فيردو كل مريها هي ميردو malqabadu ku heega dhacdo hooyo malqabadii baa ka dhacday qaadaha ay tiraado sidee jir maalintay gaadho marayado subaaciyado caar leh ayaan xidhay tiri waxa iga soo doon quruxdeeda iyo sharafteeda kulka la arko marwaan iyo muaawiya oo generaalkii booliska oo bani umayya xukumayay iyo muaawiya amiir al-mu'miniin baa iga soo doon ragii ashaara sidqin wa muhuurin qaaliya meherkooduna qaaliga ahaa gacantooyadooduna qiimaha ay lahayd marwaan baa maqlay oo wuxuu yiri 10,000 oo diinaar ayaan intaay ku guursado inankayga waagii kacaanto inankaygaan u guurin doonaa intaas aan ii joogaysaa buu haddana muaawiya maqlay kolkaas muaawiya la yiri 10,000 baan aniguna bixiyay buu oo diinaar haddii 10,000 dirham isagu ahaa inankaygaan u guurin doonaa waaga ay maxay hayday kacdeen intaay halkii Soomaalida oran jirtay kolkay gabadhu soo dhalto waa hebel baa ku xudur xidhay baa la oran jiray oo gabadhaasi ay u joogtaa lumihiisa yar ay u joogtaa la oran jiray maxay reerkii noqotay intaas soo daarood bay iibsatay انت ابن معاويه وحوري هدي لا يغو هريه لعقتي ugu soo noqon maysa buu gabadha tiri buu ashaar sidqan wa muhur qaaliya lacagta la isoo cilmaayo ha ku darsatay buu marwaana ilmu yara ha joogtay inta soo daarood bay iibsatay inta soo beerood bay iibsatay tii kala maqashay waxaan xaqay ka keentaa mi aanad maqal inantii yarayday dhashay iyo marwaana 10,000 diinaar ka bixiyay muaawiya 10,000 diinaar ka bixiyay oo hin bay qabsoo waxay ilmadii raabay sida ay kala tuurtay tiri waxa yar guriyada wada dhaaleen la iga taga wax la dhala gabadh baa la dhalay iga hor dhaqaaqa wixii nafaa ya horta gabadhu qiimaha seelay odayada Soomaalidu waxay nooga sheekayn jireen nin baa dhalay baa la yiri 5 wiil iyo gabadh buu dhalaalay 5tii wiil baa noqday
dadkan imika kolka macallinaya la yiraahdo noloshu ka dhacay la yiraahdo waa afkiina weeyaan anagu ma nabran jirin laakiin ninkaas waa nolosha ka dhacay waa qof nolosha ka dhacay baa yaa la yiraahdaa shantii baa nolosha markaa ka dhacay noqday gabadhiina ilaahay wuxuu geliyay reer fiican oo qiimo leh uu geliyo markaasay kan tuwaan yar u dhig kan wuxuu qabo odayna waxay tahay aabo cid ku daynaya la saam jirtay anna waan ka dheerahay hooyadiina daabay noqotay aan ku guuriyo islaan maryaha ka marmay bal hooyo waa yahay odaygiina way u guurisay odaygii baa yiri waryaadeen way maalin baa gablimi gaaray buu maalinta intii aamina ay iga noqon lahayd buu inaan inal gabla baa noqon lahayd waxa ku soo biiray buu gabadhii ma ku soo biiray dadka markaas wixii ilaahay barakaynayo ayaa u barakan inaan ilan baki ilaahay baraka ku gelay marka ilaahay dhamaantood baa inoo barakeeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh aad buu mahadsan yahay ilaahayna miisaanka xasanaadka ugu daro sheekul beledkeena sheekh cabdilaahi sheekh ali jawhar isla markaana ah miisaan weyn oo culus ku leh ummadda soomaaliyeed beri soomaal meel kastay joogto labada kelmadood ee qiimaha iyo qaayaha badan leh sidoo inoogu bayaamiyey inoogu sharaxay inoogu iftiimiyey sida ilaahay maalinta yowmal qiyaamaha miisaanka xasanaadka ugu daro innagana kuwa ku faa'iidaystay wax ka qaatay ilaahay nagu daro intaa ka bacdi waxaan jecelahay inaan u gudubno marxaladii ahayd su'aalaha halkaasi waxay raaci doontaa hal eray oo ah su'aaluhu waa inay markasta ku beeskaraysnaadaan turiga caawaan ka hadlayno oo ah labada kelmadood oo kala ah walaaltinimada iyo waxaa nasiib u yeeshay oo siinayna walaalkeena cabdirasaaq tafadal marka hore waxaan u mahadnaqayaa sheekheena sheekhul beledka sheekh cabdullaahi ibnu sheekh cali jawhar waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala miisaanka xasanaadka allah ugu daro innagana allah inagu anfaco الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الله ينغيره انت كذب كل سؤال بوران ما قبو لكن waxaan doonay gabaygi aw sheekheenu waxa waana shaacir oo runtii aad iyo aad bay soo jiidatay gabaygi qiimaha badnaa oo ka tiriyay qabyaalada gabaygi markii dhawta uu tirinayo ka ah qabyaalada ka hadlay kii ka horeeyay isagoo qudhiisa uu 9 kii tiriyay ayaan ka codsan lahaa isagoo qudhiisa inuu bal wax inooga dhagiheena wax ka maqashiyo marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa walaalaha ka soo qayb galay iyo naadiga ardayda Soomaaliyeed waana mahadsantihiin wax su'aalo ma qabo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aniga waxaan dhigtaa haddii waxa la yiri magacaaga sheeg magacaygu waa Cabdirasaaq Ismaaciil Cabdi دراسات عليا بان كدياريا جامعة dalka Masar kamida marka kulliyada shariicada ku jira marka sheekh aad baan isugu doonay kulli fiilahan marka marhaban bi ayad maftuux ayaan leeyahay iyo sida yaani maxay ahayd cid walba meelaha qaadkood ay u sheeganayso intaasaan ka dilayeen in walba isagoo bismillaah allahu akbar intuu intaasaan dilay jannay wada tageen mid walba wada leeyahay faqasida raa'ica oo runtii aad u qiimo leh weey haddaan carabka taabto oo mariyo waayo waan iskaga jidboonaya kolkaan arko بدأت بحمد الله النظمي أولا إذ البدء بالأذكار أولى وأنفع أخص حديثي ما أصيب بأرضنا ومن نكبات الدار ما هو مفجع ليبكي على الصومال من ينتمي لها ومن تصل القربى بهم يتوجع تحير فيها النابغون وكل من يحاول أن يسعى لحل وينفع وقد مضت الأعوام 20 كاملا وما لاح برق للحياة يتضلع فأين الدعاة الناس أين خيارهم وأين رجال الدين من هو يرجع قد انغمسوا في الحرب والكل حامل سلاح الرشاش والمصاحف توضع قتلنا من الكفار 9 و7 ودار إلى الجنان مصبع على الله يحل الدم من مسلم سوى خصال 3 لو يعون ويصنع وليس جهادا ما جرى بين إخوة بدين ولكن فتنة يتوجع فماذا يقول الناصحون وهم على شفا جرف نهار قريبا فيبخع كفى ما بنا من فرقة وتناحر وتكفير بعض القوم للبعض يصنع يحرف آيات الكتاب يؤول بما يشتهي من رأيه يتوسع خذوا عبرة ما في بلادي وقارتي وقد كانت سمراء من قبل تلمع قفار يباب والديار بلاقع وقد ضحن الحرب ضروس تشجع تؤجج نار الحرب فيهم وتجمع لهم حضر جزل وزيت يوزع أقول لهم قوموا لشمل صفوفكم ورأب لسجع كي تفوزوا وتسعدوا وهذه أقاليم الجنوب وحالها ترون وما يخفى أشد وأفظع وفي هذه الأيام تبدو ملامح تبشر بالأمن الجنوبي وتصدع أرى أنه تحيا البلاد بقادة
تقوم لإصلاح البلاد وتنفع، ومن لا يهتم للمسلمين أمورهم فليس يعد منهم ويودع. وهذه جيبوتي جارنا تتألم، تنادي بتوحيد الصفوف وتجمع، وتنفق أموالا وجهدا محققا لتهدئة الأوضاع تسعى وتسرع. وكم عقدت للصلح مؤتمرا، وكم لمائدة الحوار تدعو وتصنع. وشكرا لشعبنا الجيبوتي اتسخى بحسن القراء إذ هي في القرن منبع. وماشان كلها تاجنين نهاية ودولة الجيبوتي أن أمان وجيدناي. وشكرا جزيلا للوزير بسعيه، وقد ظهرت منه الكفاءة تلمع. ولسيد الجمهور شكر مضاعف لدينا وترحيب ثناء موسع. وندعو له عمرا طويلا مباركا يوفق له فيما السعادة تجمع. نقدر بالجهد الحميد الذي سعى لتهدئة الأوضاع في القرن يتبعه. ملتقى العلماء شرق إفريقيا قيد دريبها كأزر كيوني كويديي دورت مدة الحيس ديتن كأبو أهايو إنه كجرا وأنا ملاينا يا صدر كراياتان إنما ذي الله ضوء وأنا صدر دونا كوبي. لكن قيم وحكوا هاي سجن نفتيسو وقتها الدول دون وين السنة الصومالية ما ضلهم مبربورين نوح نزل لكن كجاه لا أوضاع لكوكا تاجنيد بكملها عرفت كوكا كان لا يحكملها تقال في لبنان بوجا سعودي خذوا عبرة الماء بالعراق إيران كيس إلى سعودي خذوا عبرة الماء بالعراق وجارها وقد عز في الإسلام حل المشاكل وما حل في لبنان ليس بخافي وقد أصبحت فينا عليم المثال وهل نبأ فيما يعانيه شعبنا على وضعة الأحباش في غرب الصومال بيد اللئيم الماركسي إلى مريم وتخضيض حزب الروس داعي الضلال فقد هدمت فينا مساجد شيدت وشردت الأيتام من هول مقتل وهذا بلاغ للأمانة عامة لتبلغ مأسى شعبنا كل عاقل سلام على الإخوان من أهل المغرب وبنغلاديش والغانيين الأفاضل والنيجيريا ثم الجزائر وإخوته وأعني به السودان والشعب الصومالي سيديد دولدود بانو هاينون شركة سدانو kala wada fadhinay marka saan salaamtii iyadana ku dhamaan ku daray on leeyahay salaami على الإخوان من أهل المغرب وبنغلاديش والغانيين الأفاضل والنيجيريا ثم الجزائر وإخوته وأعني به السودان والشعب الصومالي وهذا عبيد الله ابن الجوهري ويصب للصومال من أصل أوضلي بسم الله الرحمن الرحيم aad baan u salaamayaa sheekha adiga soo qabanqaabiyay kulankana aad baan ugu mahadnaqayaa sheekha laga su'aal baan weydiin lahaa waxaad ka qayb gashay nabadayntii Soomaaliland xilligaa waxaa jiray jabhado waxaa kaloo jiray kooxo diimeedna way jireen hadda tii mid la mid ah koonfur ka jirta marka sidee baad arrintaa يعني هي أضوح لسين ونبض أضوح لسين تكلم سوتشي لنا واحد يا شيخ ما دام شاعر بغن يو قرالة بغن لين هاي وليبو كوكل مورلتي متكلم مصر تابعات ذات بين ونكسنت مركب ودونا كله يبغى مركا هديات كنت رجعت واحد هل كان يملك على تابعات هذه سوتشي لنا أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم أولا آد بنو كفر حسن هاي الشيخ عبد الله الشيخ علي جوهر إن الله كلمه dhammaan khayarta kale aad baan u salaamaya waxa jeclaynaan hal ku jirtay qodbadii sheekayna wadiyo oo ah dhibaatada qabiilka qofka Soomaaliya marka uu qabiil ka sheekeynayo waxa la yiraahdaa waa la joojin karayaa maadaama yahay sheekh khabiir weyn sheekh khabiira muddo fara badan soo jiray bal dariiqada ugu sahlan ee dhibka Soomaalida haysta loo joojin karo inaad xogaa yar sharaxdo leena waa la joojin karaa baa la yiraahdaa qof kasta la joojin karo laakiin qaabka ugu sahlan ee loo joojin karo إن شاء الله بلينا هذا وحير نقدر تديله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ورحمة الله. مقعي وعادة إسحاق برة حلقة جامعة الأزهر كلية الشريعة والقانون. لقيا بوراك يهرب سؤال شيء ويدي سؤال شيء واحد هاي ما دام إنه كل شيء إن الصومالي حان دبلتين بدن هذا وتر بدن قبيلة واحد الأسبوع جرا مكانة دي هراء بوسكي هراء الصومالي اللي هاد أحد من نماذج وذكركي عن كل هن نقد أحدنا يدور كيني دبل عن كل هن هذا هذا ولا لهن دولة عربتا أما كوا أفراد عالمك بوسكي وينا الصومال اللي هذه مقعد سيبدي بلوه سؤالين كرابيرته يوم من نماذج أنا قد أحدنا إهد هذا ما دام يجتو كلاتك وحلا عدو ترابط والما سنتشر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تحقق قبائل كاسبة كحلنا أرنتي ويشاقين كوري سوتشيدية ويلي
sideebad marxaladda u soo maray aad ku xalliseen ee aad ku nabadayseen runtii waxay ahayd kolkii dowladdii Soomaaliyeed ay burburtay dadkiina hubkii iyo silaaxii ay wada qaaday odayaashii iyo culamaa u diinkii iyo dadka baayac mushtariga ah ee wax garadka ahaa ayaa isu tagay ee gobolada waqooyiga oo kolkaa ku noolaa waxa la yiri dariiqadeebaan wax ku xallin karnaa ayaa la yiri haddii dowladdii Soomaaliyeed ay burburtay waxaan ku xallin karnaa baa la yiri in horta dhan ay nooga joogsadaan nimanka siyaasiyiinta ah ee mansabdoonka ama madaxweynenimo doonaya ama saraakiisha ciidamada ah inay shirkay nagala qayb gelin ay halkaa fadhiistaan iyagu inteena kale aan kolkaa maxay ahayd dejino oo wadanka aan dejino waxa kaliya ay naga fadhiisatay ay nabad ku dhacday gobolada waqooyiga ee American Somaliland magaceeda la yiraahdo la baxday ay tahay ama loo yaqaanaba waxay odayaashu ay garteen inaanay saraakiisha iyo cidda mansab dawladeed doonaysay ama madaxweynaha noqdo ama ra'iisul wasaaraha noqdo iyo ama nimanka ciidamada hor joogay inaanay shirka mu'tamarkay odayadu leeyihiin inaanay shaqo ku yeelanin wixii odayada ka soo fula ay goostaan odayadii kolkaa waxay gaadheen in laba golo ay sameeyaan golo majlis shuyuukh la yiraahdo oo golaha odayaasha oo anigu aan kamid ahaa iyo golaha la yiraahdo majlis nawaabka ee wakiilada la yiraahdo oo mid walba uu yahay 8 xubnood aw yahay ayaa la sameeyay halkaas kolkaa ay kuwaas doortay kolkaa dadkii madaxda ahaa ayaa doortay nimankii saraakiisha ciidamada ahaana waxa amar lagu siiyay in ciidamadii ay ururiyaan ay waxla boolis ka dhigaan waxla military ay ka dhigaan waxna qolada ay jeesh ay ka dhigaan wixii aan u qalmina reerahoodii u kaca ay yiraahdaan tiin nimankii way ku dhaqaaqeen hadii maalintii nimanka saraakiishu ay carqalad gelin lahaayeen oo oran lahaayeen wadanka la naga saari maayo taladiisa annaga ay oran lahaayeen wax alla wax hagaagi lahaa ma ay jirin nimankii saraakiisha ah uunba arrinkii odayaasha mar kaliya qaatay oo yiri taladiina waan qaadanay soona dhexgelin mayno ciidamadina waa loo idinka habaynaynaa ciidamadina way habeeyeen waxay booliska ka dhigeen waxna military bay ka dhigeen waxna qolada ay jeesha leeyahay ka dhigeen waxna reegahoodii u kala direen sidaas horta nabadda waqooyigu ay ku timiday oo ay ku xasishay su'aasha labaad inaan ku lahaa waxay wax madbuucaad oo aad qortay ma ay jiraan ayaa yiri runtii culimada Soomaalidu uma ay lahaa caado uma ay lahaan jirin oo kuma ay badnayn taaliiftu kuma ay badnayn laakiin xagga luqada carabiga waxaan qoray way jiraan oo kitaab naxwaha oo qoray way jiraan laakiin qoladii talaamiideyda ahayd baan gacanta ka geliyay oo iri bal kitaabkaasi idinku naqdi ku sameeya inaan sidaa ku daabacno iyo wax tacdiil ah lagu sameeyo marka insha Allah taala waxaan ku rajo weynahay anigu takhasus gaara waxaan u leeyahay luqada carabiga baan takhasus gaara aan u leeyahay ama aan oran karaa wax qiimo leh wad ka qori kartaa aan oran karaa marka gacanta ayaan ku hayaa waana meesha aan la kaashan doonaa insha Allah taala wadankeena naftiisa waxa la keenay madaabici waaweyn baa la keenay oo waxba lagu daabici karayo waana arrin lagu gubaabisay aad baan insha Allah ugu dadaalayna waxa xigtay سياسة الصدحات يسوق قبل سياسة الصدحات horta qabiilku lama oran karo qabiilka waa la tirtiraya ama dadka qaarkiisada ay lahaan waa dhadhaaro ay yiraahdaan ma waa wax nasab soo taxnaa oo soo jirayay weey laakiin waxa weey iyada oo qayb soorka laga daayo wax lagu qaybinayo ee dawladnimada lagu qaybinayo in qabiilka laga saaro oo inamada jaamacadaha ka soo baxa warqadda shahaadadooda alla tixgeliyo oo shahaadada la yiraahdo kaasi ee uu keenay kaasi B uu keenay waxa soo qalmaa shaqada hal la siiyo laakiin aan shahaadada dhanka kale loo rogin oo aan la oranin kaasi beesheedu ka tirsan yahay waa beesheedu yahay halkeedu yahay waxa hagaagi maayo kolka qabiilka wax lagu tirtiraya oo laga gudbaya doorashooyinka oo qabiil aan lagu salayn ee ninku gobolku doono oo iska sharaxi karo gobolku doono oo iska sharaxi karo oo laga dooran karo shaqada oo aan lagu bixinin wax qabiil la yiraahdo aan lagu bixinin ee dadka lagu eego aqoontiisa qofka lagu tixgeliyo cidoo doonada ha ahaado insha Allah laba walaalaana ha ku soo baxaan shan walaaliyaal soo wada baxaan taas laga bixi karaa horta karaamo weyn baynu Soomaali ku lahayd dawladaha Carabta haday tahay ama Afrika ba waxaan sheegayeen markii dowladda lahaa qad kaana li fi ufq najm saadic wa dawi sawti fi al-afariq yusma'u xiddig iftiimayaan Afrika geeskiisa aan ka ahaa oo iftiimaya codkaygana Afrika wala dhageysan jiro dhigta loo dhigi jiray asal lahu libadun wasti arinihi libaax kayntiisii dhex joogo oo reebaya ayaan ahaa wal yawma sa'aladu la yuhabu mudayya'u maantana dacwo ciidina ayna ka haybaysanaynin
ayaan ahay watarta qasiidadeedii ay ku jirtay waxa weeye dadka Soomaaliyeed ama ha wada jiro oo mid kaliya ha ahaado oo labadii gobol ee waqooyi iyo koonfur oran jira ama ay isku soo noqdaan ama maslaxada u arkaan inuu mid waliba geestiisa dawlad gaar u noqdo ama maslaxada u arkaan inuu mid walba horta gudihiisa hagaajiyo oo uu ka nadiifiyo fasaadka iyo xumaanta uu ka nadiifiyo uu soo kici doona magacii Soomaaliyeed uu soo kici doona caalamkana kaalinta ay kaga jireen awal iyo tukasi weyn iyo maxay yeelay noqon karnaa ana saas aniga igu muuqata الرحيم دمان خيرته وسلامي كرهان شيخ سفع ما وسلامايا سؤال الشيخ ودينا waxay tahay kelmadii saaco waxaan ka akhriistay wadankeeni saddex baa haysatay waa qabiilka iyo qaadka iyo quudka marka sidee ku xalin karnaa mushkiladda in wadankeeni wax kala soo baxno oo aynu mataqaana khaarijka waxa nooga imaanaysa bariiska baasta waxyaalahaas uga hari karnaa intaas soo sheeg soo wata xasan baa leedahay waxaan rabaa inaan su'aal ku saabsan Soomaalida ma la oran karaa wadadii yani muwaadiniina waayo waxaan arkaa aniga Soomaali waan wada sheegnaa marka laakiin wali ana arkin qof Soomaali oo yani ama bulsho Soomaaliyeed oo si dhaba ma aragtay wada dhacsan tahay talnimadu waxa ka dhigan tahay haddii imika dan aan ka bilaabo inaan qabanno wax mid ah waxaad arkaysaa yani qofkii Soomaaliga wuxuu ku horumarinayaa danihii kale maanta waxaa jira Soomaaliya bulsho aan xusbiyo iyo ahladii Soomaaliland sidoo kale waxaan arkaa yani qabaayilo marka waxaan isbeddelaya in kaala yaabanahay su'aasha ma soo diyaarin laakiin waxaan arkaa mar walba Soomaali ani waxay yihiin mar walba inuu yani Soomaalida wallahi aan arko iyagoo yani danta ka midaysan haddana meeshii haddii la keeno arrin Soomaaliyeed waxaad arkaysaa arrin qabiil baa ka horeeya marka maxaa ugu wacan baa la oran karaa ma jahliga ma isnacaybba yani sababta keenaysa waa maxaa la oran karaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu assalaamu calaykum marta sharafta qaaliga iyo sheekheena sheekh albaladka sheekh Cabdilaahi sheekh Ali Jawhar waxaan aad ugu mahadcelinayaa muxaadarada qiimaha iyo qaayada mudan ee uu noo soo jeediyay haddii aan nahay ardayda dhalinyarta ee wadanka Qaahiro wax ka bartaan aad baan ugu faraxsanahay kasoo qayb galnay ama cilmigan ka faa'iideysanay su'aasha aan weydiinay sheekha waxay tahay doorka dhalinyartu ma islaada ma ka bedeli karaan mustaqbalka Soomaaliya wax ma ka bedeli karaan dhalinyartu haddii ay noqoto wax soo saarka dalka in ay kor u qaadaan oo wadankeeni wixii ka soo baxa la isticmaalo haddii ay noqoto sidaad ka hadashay mushkiladda qaadka oo kale qabiilka in la tirtiro doorka ay dhalinyartu ka qaadan karaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قدرتي هوري قبيلك يا قادك يا قودك كهديسي ولي سيابا waxa looga qaban karaa uu yiri runtii inaan wax kala saabto waan u maleeyaa maxay yahay xagga qabiilku waa in laga joogo waxa laga gudbi karaa oo kaliya qabiilku ma aha kala leeyahay laga tago nasabada yaan la sheeganin ma aha oo xariiqa weeyi laakiin xumaanteeda iyo raadkeeda sayaah ee xun ee lagu dhaqmayo in laga tago waxa weeyaan doorashooyinka oo aan lagu salaynin wax qabiil leeyahay aan lagu salayn qayb wixii ummadda loo qaybinayo oo aan lagu salaynin wax reeheba leeyahay aan lagu salayn oo waxyaabaha qabiilka laga gudbi karayo qaadku waxa laga gudbi karaa madallad guud oo la sameeyo oo ka kooban علماء الدينك odayaasha waxgaradka bay'am mushtariga waaweyn xukuumadaha lisan oo shir ka yeesha oo qaraar ka soo saara qaraar culidiisa ka soo saara waa laga gudbi karaa qoodku kadalik waa xukuumadaha jira oo dadka ku dhiiri geliya inay dalka beertaan oo wax kala soo baxaan oo midalan halka ay basasha la cashuurayo ee Yemen ka soo degaysa iyo cusbada la cashuurayo la yiraahdo ninkii u dhimanayo basal u dhimanayo u dhimo basal la soo dejin maayo cusbo ninkii u dhimanayo cusbo la soo dejin maayo cusbo la keeni maayo oo la soo dejin maayo ka beero wadankaaga kii ka beeranayo ka beeran layla bariiska oo kale iyo daqiiqda oo kale isla markii lama oran karo iyagu lama soo dejin karo iyaga markii lama oran karo laakiin hal dhiiri geliyo sidii loo beeran lahaa hal dhiiri geliyo waa dhulka biyuhu ay maraan wadankeenu
weliba anu waqooyigan ka warqabaa ee somaliland baan ka warqabaa 12 bilood 7 bilood unbay qallalan yihiin tixiru 5 bilood dooxyadu way socdaan badayna ku daraan in dhaaman la sameeyo dadka dhaaman loo sameeyo beeraha la isugu celceliyo oo la yiraahdo gooni laga daayo oo la isugu celceliyo naba intaas aad leedahay la yiraahdo wixii matoor laga caawin kara laga caawiyo xukuumaduhu inay xoog saaraan sidii dhaaman loo xili lahaa zarcigana loo dhiirigelin lahaa quudka kolkaa u baxana cashuur culus la saari lahaa daqiiqda iyo bariiska la saari lahaa tamaanada oo kale oo waxyaabaha aad u soo gala wadanka ka mid ah beeraha ijaarkooda aqalada hortooda iyo ka bixi kartaa cusbada iyo tamaandada waxyaabaha aan daruuriga ahayna in la yiraahdo iyo cusbada iyo basasha toonta lama soo dejin karo waxa la yiraahdo ninkii beeranayo oo beero kan beeranayo waad ka kaafsanaysaa la yiraahdo waxyaabaha aan laga maarmaynina in la dhiirigeliyo in horta wadanka laga beero kolka wadanka u baxana ka cashuur dheeraad la saaro abaalmarin la siiyo dadka hodheelada ku kariya waxa wadaniga kariya in abaalmarin dhiirigelin la siiyo in dadka tijaartu dadka hooseeda ay noqdaan iyo culimada diinku gudiyahooda inay ku beeraan oo yiraahdaan waaran cunno waxa wadankeena ka soo baxay aynu cunno caalamka kale aynu mid noqono oo aynu ka baxno arrintan oranaysa Soomaali waa qolada Kenya ee waxa dhulkeeda ka baxana aan cunin waxa dharo hiwatana aan samaysanin dadka kala mariyo samaystaa oo wada xogaa koonfurtaas abaabay nabiga jiidaasay dadaalki iyagana dharkii Jabaanka ku geeyay walba lagu soo tuuray oo la iska wada nacay marka aan ka baxno dhulkana wax kala ma soo baxaan huwa ma samaystaan taa aynu ka baxno inanka su'aashii soo jeediyay Cabdirasaaq ee wiil ma arko wax Soomaali oo Soomaalnimada rumaysan wiil horta kullinimo looma anfin karo oo lama oran karo ma arag dad oo dhan lama oran karo laakiin arrintaasi waa arrin inagu talaalantay oo qabiilka uu talaalan yahay oo la inooga baahan yahay inaan adkayno Soomaalinimada aynu adkayno oo aynu aragno wadankeenu inuu yahay kii Ilaahay nagu beeray aw yahay in maxay hayday aynaan ka tagin Soomaalinimada aynaan ka tagin in la yareeyo talaabidan la talaabayo ee jinsiyadaha kale lagu beermaayo la yareeyo kulli arrimahaynkaasi abaan u arkaa arrintii gabadha ay soo jeedisay oo ay tiri dadka dhalinyaradu awood ma u heli karayaan umuraha saddexda ee aad soo sheegtay qabiilka iyo qaadka iyo quudka wax ma ka qaban karaan ati waxaan anigu leeyahay oo igu muuqataa mid dadkay kala qayb waqti dadkay kala qayb gali karaan maanta marxaladda la joogo way kala qayb gali karaan sida qabiilka loo tirtirayo qaadkan loo tirtirayo quudkan loo tirtirayo odayadu bari kulkay tagaan iyagu xilka la wareegaana iyaga way socodsiin karaan hadday noqdaan oo ina khadkayagi ay ka baydaan oo ina jacayl ma cuno wal cuni jiray marka qaar waxa ka yar cuni jiray laakiin la toddoba saxnadood waa ka sii maqaan haddii iyagu ay gooyaan kolkaa iyagu isku bilaabaan oo ay yiraahdaan way socodsiin in kala way kala qayb gali karaan odayada dowlkooda kulkay gaadhaana way fulin karaan arrintaasi dhibir bay fulin karaan ay maskaxdooda way naga furan tahay imkaaniyad cusubna way helayaan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه آد بمعسية مر لبات مر صدحات شيخ البلد كينا شيخ عبد الله الشيخ الجوهر يسيدو كلا أقويان عبد الله نور حسن وحنا مرينا يعاو موضوع إني بروجرام كيني إنه تاسين وجوهي هاي أنت واحد كده بيوحنا فيا بروجرام كيني نروح يعاو